bulshay meel kasta aad joogtaanba waxaan idin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikada duulimaadada ee tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taala bartamaha Birmingham oo idinku qadmeynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyadaad booqanaysa iyo dhulka barakeysan Makka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara dadka doonaya inay xajka iyo umrada tagaan waxay ugu tala galeen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jeddah kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star ka oo dhamaantoodba 5 star ay yihiin Royal Rayyan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugada ama teendooyinka casriga ee VIP da meel kasto aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiina iyo hawlihiinaba u dirsataan Furqaan Travel intii horay uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kana ay jeclaysan doonaan ana jeclaystay iyada jeclaystay isaga jeclaystay kulligooda jeclaystay adinkuna jeclaada Furqaan Travel yaa la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee ATOL oo ah mid iyadoo hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ee ma buuxiye la xiriira maamulaha sare Cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad samaar idin ku soo dhaweynaya wixii faahfaahin شاشة كداورة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك استوى نقدر هنيسان وبرنامج جاره أو كمية برنامج ده جار كهدي جورالات دهاتان يدو برنامج كان إنه كسب سنة هي شركة ده لقوم بجعبه فرقان ترافل أو كمية شركة ده سوماليدو أيلة ده هي قابل سن لنا سفرة كلا دون وديارنتا بالشدة أما هنقدين قوة سوماليات أما هنقدين قوة كلا مركزي يوم عامل كالله barnaamijkan isaga ee gaarka ah ku saabsan Furqaan Travel maaha markii ugu horeysay oo halkan aanu ka sii deynay dhowr jeer ayaanu sii deynay barnaamijyo gaar ah oo aan filayo qaarkiin oo iminka dheehanaya ama daawanaya inaad nasiib u yeelateen inaad ka aragtaan Universal TV waxa hadiyo goorala lagu soo qaadaa ee barnaamijka Furqaan Travel guud ahaan arrimaha ay howlahaasi ay u qabato sharikadu bulshada iyo wixii markaas soo kordha iyo arrinka markaas taagan waxa barnaamijka igala qayb galaya kuwii horena igala qayb galay mudane Cabdiweli oo aad taqaanaan oo ah mulkiilaha sharikada Furqaan Travel fadhigeeda weyn waxa uu ku yaalaa magaalada Birmingham ee wadanka Britain iyadoo laamo kala duwan dunida kule waxa ay dadka u fuudaysaa arrimo badan oo ay kamid yihiin marka bulshadu ay doonayso inay xajka tagaan waajibaadka ay soo gutaan diyaarinta safarkooda ilaa ay ka tagayaan UK oo ay tagayaan dhulkii barakeysnaa ha noqoto dhinaca duulimaadka diyaaradaha ha noqoto dhinaca gaadiidka dhulka ha noqoto hoteelada la dejinayo ama ha noqoto guud ahaanba waxyaabaha laga maarmaanka u ah sida cunada iyo wax kasto qofka u sahlaya arrimaha gudashada waajibaadka eebe xajka iyo umrada labadaba iyadoo waliba dhinaca kalena ay helaan dadku casharo markaasi ku saabsan qaabka iyo sida dadku ay waajibka u gudanayaan oo taas lafteedu ay laga maarmaan tahay markay tahay waqtiga xajkana qofku sidoo xajka u gudan lahaa inuu wax fiican iyo fikrad fiican ka haysto oo maro dariiqeedii umrada markay taana sidoo kale marka hore waxaan soo dhaweynayaa Cabdiweli marka labaad waxaan leeyahay bal nooga waran oo xog kooban naga sii Furqaan Travel iyo xaalkeeda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكتا وانك سلامية بلشوين الصومالية ملكستو أدونك إيكا جوغان ونقل لهانية تيفيغان وان سلامية انت اسكدب أكتا وسيدان هذا كور بدتك وشاقناي فرقان ترافل asaaskeedii waxaa keenay muhiimadda ugu muhiimsan ay ahayd maadaama aan ka furnay magaalada Birmingham ayna ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn England in shacabka Soomaaliyeed ay ku soo bateen magaalada Birmingham sidaa daraadeed waxa laga maarmaana dad haday meel ku soo bataan inay helaan service kaas oo waliba u dheer in afkoodi hooyo laga qabtirayo Furqaan Travel macaamiisheeda meel kala duwan ay adduunka joogan Birmingham kuma eka dad badan ayaa waxa jira Yurub xataa jooga oo ayagu Yurub jooga naga raacay xaj umro iyo holiday kala duwan marka baahiyoyinkaas iyo baahiyoyin lamid ah oo waliba taagan maalin walba ayaa Furqaan Travel ay dadka ka caawisa barnaamijkeeni ugu dambeeyay marka la fiiriyo Universal TV oo halkan aad fadhisay studio London waxa looga hadlay su'aalo dhowr oo dadku ay ku weydiiyeen iyagoo jooga Yurub ama adduunka oo la xiriirtay xajka xilligan iyo sanadkan hadii abayd 1435 waxa markaas jirtay in xilliga xajka liiskii uu buuxay laakiin aad barnaamijkaas kaga dhawaajisay in ilaa iyo 20 boos aad filayso codsi gudbisatay ah dalku galkii yani xilliga xajka arinta iyada maxaa ku soo kordhay
cagtow aad baa u mahadsan tahay waa runtaa dadka Soomaaliyeed sidaad maalintii ugu dambeysay TV-ga aan fadhinay ay aad ba uga wada sharqamiyeen inay xajka inay aadaan rabaan boosaskiina ay ka buuxsameen hadda falillahi alxamdu waxaan helnay 20 qof oo cusub oo 20 kaas oo waliba ma aragtay dadkii hore ay israacayaan haddii noqon lahayd dhanka diyaaradda dhanka hoteelada dhanka serviceka iyo dhanka seminaaradaba marka ilaa maanta ilaa shalay waxaa jira dad badan oo soo xiriiray oo raba inay baxaan 20kii hadda 18 baaba haray labo maanta ay la soo hadashay marka insha Allah hadda waxaan rajeynayaa 18 haddaan xafiiska galabta la wicin midda kale barnaamijka Furqaan Travel waxaad ka dhawaajisay qoysaska Soomaaliyeed xilliyada kuleelaha oo kale oo iskuuladu xirayeen sida xilliga lagu jiro kale in ay aadaan safaro qaar waxay aadaan bariga dhexe laakiin dadku waxaad moodaa inaanay baranin safarada aan bariga dhexe kaliya ahayn ama Yurub kamida ama waqooyiga Afrika oo kale kamida oo yaani ay helayaan markay halka ka baxaan halkii ay degi lahaayeen cuntada ay cuni lahaayeen oo lacagta ku kici kartaa ay ka yar tahay mid ay ku bixiyaan hotel kaliya iyagoo meel fog aaday arrintan nooga waran cagtow waa aad baa u mahadsan tahay waxaan aad ugu faraxsanahay in dadka Soomaaliyeed loo faahfaahiyo waxyaalo badan oo Yurub ka jiro holidayadaas ka sharqamaysa hadda oo kale hadaynu eegna dhanka Turkiya Morocco Cyber Malta hatta Spain meelo badan holidayadaas waxaan kula talin lahaa dadka Soomaaliyeed inay bartaan especially Turkiya iyo Morocco holidayadaas waxay ka saacidayaan in lacagtii ay hal mar ku tagi lahaayeen Soomaaliya alab waxa laga yaabaa dadka qaybtood inay family weyn yihiin oo laga yaabo tigidhka kaliya ilaa iyo UK Soomaaliya inuu ku noqdo 10,000 pound dadkaas oo kale waxa aad ugu fiicnaan lahayd inay holidayadan gaagaaban tagaan sida labada wiigo April labada wiigo December inay dadkaas aad iyo aad ay ma aragtay ay ku qarash gareeyaan ilmahooda inay soo baraan wadamadaas islaamka ah oo waliba facility-ga ay ka helayaan ay tahay facility-ga Europe ay ka helayaan dhanka lacagtan waxaan rajeynayaa haddii qofka sidaan hore hadda ka hor u sheegay oo waqti dheer oo qofkaas uu ma aragtay uu sii booking gareysto inuu ku heli doono lacag ilaa 400 baan meelahaas 380 400 baan oo muddadaas labada wiiga laba week marmarka qaarkood laba week marmarka qaarkood 10 bari marmarka qaarkoodna week baa dhici karto insha Allah hadii ay markaas iskuuladii ay soo dhawaadaan xiritaankooda boosaskii diyaaradaha laana diyaaradaha waxay u design gareeyeen economic class ka hadii ka buuxsamaan waa ina u gudubtaa dhankii higher class marka sidaa daraadeed waxaan waliba kula talinaa dadka Soomaaliyeed in ay aad iyo aad uga fikiraan in ay sanadka soo socdo haday holiday aadayaan inay u ma aragtay u si diyaar garoobaan sanad ka hor si lacagtiina ay tartiib uga bixiyaan kadibna ay ma aragtay holiday ugu suurta gasho marka muuqaalada matala aan aragnay ku saabsan xagga hotelkii muuqaalkiisa iyo magaaladii sariirihii la seexanay meelahaasi meelo adigu aad booqato miyaa mise waa lagaga sheekay wallahi hoteladaas hadda aad u jeedo waa hotel aniga aan degay waa hoteelo waliba aniga iyo ma aragtay ciyaalkayga aan tagnay run ahaantii hadda ka horna waxaan u malaynaya aan ka sharqamiyay xataa Dubai waan geeyay ciyaalka wiilkayga Cabaas wuxuu igu yiri aab Dubai damaana geenin Turkiya iyo Morocco meelahaas nagee marka waa waxa moodaa inay la haystaan qaabkii Europe haddii hoteelada tahay haddii meelaha tuurkoo la tagaya tahay haddii ay tahay ma aragtay xataa hoteelada siday u design garaysan yihiin marka in badan waxaan kula talin lahaa faamilada Soomaaliyeed alaaba waxa laga yaabaa in hagbad weyn intii la soo qaato Soomaaliya lagu qarash gareeyo hadhow dadkii markay soo laabtaan ay deyn ku sii jiraan inay bal holidayadaas oo hoteeladii iyo transportationki iyo tuurkii iyo waliba cuntadii oo fuul ay ku jirto inay taraagareeyaan insha Allah wahagaag telefoonno dhowr ayaan gali doonaa kadibna dadka macaamilka la yeeshay Furqaan qaarkood oo sheekeynaya marka hore telefoonka ugu horeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alo assalaamu calaykum walaal abo sata walaal fiican weeye bo cagmadhiga kula hadlaya magacaaga cagmadhiga Caashim Maxamed Cumar baa la dhahaa Caashim Maxamed Cumar barnaamijka ma la socotay waa la socnaa barnaamijka haye maxaad jeceshahay inaad tiraahdo walaal abo walaal aba meesha ka goosta tigidhka ilaa Boosaasan ku tagay haye marka waa meel aad u fiican aan leenahay marka Boosaaso markii waxaan u sheegaynaa inay meeshaas tagaan si fiican baa noola soo dhaweeyay Abdiwali baa si fiican noo soo dhaweeyay waa kaasa markii aad Boosaaso ku socotay oo London ka tagtay ma waxaad sii martay Nairobi mise Dubai waxaan sii maray Somaliland xaggaad sii martay kadib baad halka ka aaday Boosaaso xaggaas baan Boosaaso ka aaday waxyaabihii ballanqaadka ahaa Furqaan Travel markaa tigidhka goosatay adigoo caasha maxaa ka dhimanaa maxaase ka siyaadaha sidee xaalku ahaa ما شاء الله wax ka dhimna ma ahan wax
wax walba aan ku wada heshiinay sideedii ayay u dhacday. maxaad soo jeedin marka fikrad ahaan? waxaan soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaalida ah oo saas wax u yaqaano oo aad u fiican inay u tagaan oo tigidhada ka goostaan kula talinaya. waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay Caasho adigoo leenka telefoonka kaga qayb galay ee barnaamijka. leenka kale ee telefoonka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal waa ku soo dhaweynaynaa aniga iyo Cabdiweli magacaaga iyo halkaa joogtid. walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Khadiijo waxaan ka soo hadlayaa magaalada Birmingham. haye waan la socdaa barnaamijkii barnaamijku waa daawanayaa. weli macaamil ma la samaysay? haye ما شاء الله تبارك الله dadka raacayna dhowr safar la galayna waxaan ahay kamid. haye ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan waxaan ku waaninayaa kulana talinayaa inay safarada la galaan sababtoo ah safareed waa ballanqaadkiisu diin leh almuslimuun calaa shuruudihim buuna ku shaqeeyaa wax alla wuxuu dadka ka ballanqaado siday yihiin ayuu u fuliyaa. aad iyo aad markaan ka arkay oo aan kaga qayb qaatay tigid aan ahayn asagana ilaa 2009kii mada goosanba. waa gartay meel walbo aan tagana balaayana kuma arag. waxaan aad weliba waxaan jeclaan lahayn hadday suuragal u tahay oo aan waraysan lahaa Cabdiweli si khaas ah hadduu uu imaqlahayaaye inuu tababaro 7 wiil oo isagoo kala ah oo dadka xajka iyo weliba cumrada aadahaya sidoo isagu ugu khidmeeyo dad u khidmeeya. waa ra'yi fiican wuu ku maqlayaa. meelo badan oo lagu khasaaray baa jirta. dad badan oo meelo ku khasaaro aan ku aragnay inta hoteelo la dejiyay aan laga daba imaanin baanu aragnay asagoo anaguna wado oo aan anagu dadkii asxaan u soo binay. aad baad u mahadsan tahay Khadiijo waa ku mahad celinaya adoo barnaamijka ka qayb galay horena macaamil ula yeeshay Furqaan Travel. aad baad u mahadsantahay. leenka kale ee telefoonka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. adeer waa nin oday Cabdinuur Xashbootaan la yiraahdo waxaan rabi lahaa inaan barnaamijka socda ka qayb qaato. aad iyo aad cagmadhiga kula hadlaya Cabdinuur oo seetahay ma fiican tahay soo dhawow. adeer aad baan u fiicanahay marka qofta iga horeeya aan malaynaya ku jira hadda. maya adiga qofka ka horeeya laakiin hadda adaa hawada ku jira adaa lagu maqlayaa hadda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقمدي أدي عبد الولي بقران كعددي ساينكو السلام يا عاديات أنا قلنا سيدو كلام كو سلامينا waxaan jeclahay inaan kaga qayb qaato awalan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtay iyo islaamkaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa gaar ahaan telefishinka Universal iyo shaqaalaheeda gaar ahaan ninkale cagmadhiga oo u taagan markaste bulshada danaheeda. aad baan gooni idinku mahadcelinayaa. aad iyo aad mid lamid ahaan ku soo gudbinayna. waxay u kalifay inaan maanta ka qayb qaato barnaamijkan. runtii waxaan dhihi karaa Furqaan Travel Agency oo Cabdiweli hogaamiyo iyo staafkiisa waa sanadkii dhawaa ayaan xajkii u raacay. xajka anigoo ka qabay cuqdad aad u weyn iyo baqdin oo sidii wixii layga sheegi jiray maalintii aan la kulnay halkaan aanu ka baxnay Birmingham ilaa aanu ku soo noqonnay baan rabaa inaan anoo soo koobaya wixii aan soo arkay ummadda Soomaaliyeed adoo soo koobaya maadaama layman badan ku jiraan haye halkan markaan ka baxnay horta cuntadiina la ku bilaabay marka hore waxaan idhi baska ma lacag baabaan isiri waa gartay waan ka sii gudubnay oo markaanu jiddo ka degnay basaskii markaanu gallay tabtiiba cabitaan iyo cuntona waa ku bilaabay waa gartay jidka intaan sii soconayna hoteelada ugu waaweyn baa cunto lacag la'aan ah aanu meesha kaga qayb qaadanay waa gartay madiina markaan tagnay annagoo wabaxa oo aan waxba u baahnayn baanu tagnay waa gartay waxyaabaha aan xusi karo waxa ugu waaweyn dadka wuxuu ka hormarin jiray kolley xilligaas 7 casho waa gartay annagu dadka ugu horreeyay annagoo madiina nasanay ayuu yimid waa gartay hoteelka uu dadka ku dajiyo waa hotel madiina ka soo horjeeda masaajidka oo 5 star la yiraahdo waa gartay halka qof wuxuu ku leeyahay wax alla wuxuu u baahnaa subax quraacda ilaa buu cuni karaa maantii qado uma baahna waa gartay masaajidkana 5 salaadood buu ku tukanayaa waa 3 minutes buu soconayaa ama wax ka yar waa gartay waxa inta dheer isla markii wuxuu qabanayaa dad yaqaan
dad jaamacadaha wax ka dhiga meesha liya Madiina ba ilaa maalintii aanu ka soo baxaynay maka inta iyaga nala socday waa gartay wax allaala waxa xujaydu u baahan tahay oo dhan iyaga noo sharaxayay waa gartay isaguna waa inaan ka yarkaayo diinta waa yaqaan si fiican anigu runtii ma aqoon isaga laakiin raggii sanadkii hore 2000 2000kii dadkii raacay baa iyo warrinkaas aad maalintii aan beegahayay ka bacdina 2013 baad raacday 13 baa raacay 2013 baa aad waxyaabaha aan aad iyo aad u xusi karo oo ilaa cajiibka ah Madiina markaan ka soo tagnay oo maka nimidna waa 5 star oo Kacbada dusheeda baanu degnay si fiican doontii baa Kacbada dawaafaysa salaadahaaga aad ku tukanaysaa waxaase ila cajiib badnaa maalintan anoo nin Bangladesh ka goosanay dadka xajka wuxuu yiri war xagee lagu dajinayaa saana 5 stars war dadka been bay u sheegaan oo 5 star bay yiraahdaan waxay dajiyaan dhul aan mar la gaari karin laakiin arrintii waxay noqotay sidii la rabay waxyaabaha xusida mudan waxa kamid ah oo aad iyo aad aan ku ilaaweyn markii la degayo mina oo taqaanid meesha la yiraahdo meesha ugu daran oo dadku ku baabao waa halka waa gartay uraac iyo qado iyo casho sariirtaada adoo jiifa lagu keenaya ma sha Allah aad iyo aad baan kugu mahad celinaya ma hanato waxa yaal baxa la yiraahdo fadacan aad iyo aad baan kugu mahad celinaya markaan tagnay meesha la yiraahdo Carafa oo la taagan yahay waa sidoo kale quraacda waa nooga horeysay ma sha Allah aqadadiina waa cabitaankana baldaa mahadsanid aad waxa dheer dadka staafka dadka la socda oo intaana la socda oo wax walba noo sharaxaya mahadsanid waxyaabaha lagu ilaawi karin inanka yarka waxa weeye waa waxaad sheegtay iyo ka badan وأنتم شيء كبدن aad baad u mahadsantahay fursado kale ayaan heli doonaa laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaamu calaykum walaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid walaal Naciima la dhahaa waxaan inaan weydiiyo rabay yarka oo Furqaan travel waayid salaam markuu ugu horeeyo waxaan rabay inaan weydiiyo dadka Canada ama America meelahaas joogo ma caawin karaan mase xagga xajka miya waa su'aal fiican dadka Canada jooga Cabdiwali ma la caawin karaa tiri iyo Mareykan waa meel fog weeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim aad bay u maasantahay marka hore maadaama ina soo wacday marka labaad sidaan hadda ka horba hore cagmadhigo halkaan uga sheegay dawladda Sacuudiga wixii ku saabsan xaj iyo umro waxay u design gareysay qof walba wadanka uu joogo inuu ka xajiyo hadii aysan ahayn Europe marka Canada iyo Mareykan dadka joogo waxay ka tagi karaan Canada iyo Mareykan kaliya halkan maaha laakiin halkan waxa la mid ah qofka Sweden joogo Belgium joogo waa u sameyn karnaa aad iyo aad baan filayaa inay u fahamtay walaashay oo Mareykanka iyo Canada dadka jooga halka bay ka xaji karaan halkaana waxa jooga maaragtay safaaradii iyo consuladii boqortooyada Sacuudiga laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal ku soo dhawo barnaamijka magacaaga halka joogtid walaal lacag madhiga aad iyo aad baan ku salaamaya adiga baa telefishinka Universal waxaan kaloo salaamaya mulkiilaha Furqaan Travel Cabdiwali Ciise runtii aad iyo aad adiga lacag madhiga ahaan doorkaaga waa la yaqaan waa door shariif oo ilaa iyo wadankii barasamaadkii ilaa iyo maanta la joogo waa door qiimo oo dhexdhexaad oo islaamnimo iyo Soomaalinimo iyo karaamo huwan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu kugu dilo kugu nooleeyo kugu siyaadiyo aamin waxaan arintaas inta markaan ka baxo runtii ilaahay baa maaragtay mahadle Furqaan Travel waxay leedahay amaan weyn oo ballaaran oo cid koobi karta aysan jirin yani ma aha Soomaali kaliya ma haddaas waxa u haya amaantaas xataa dadka ajaanibka ayaa u haya oo muslimiinta ah waxa way laga bilaabo halkaan markay dadka ka wada UK ilaa iyo markay geeyeen xaramka barakeysan waxay ka bilaabaan masjidka rasuulka Madiina waxay geeyaan ijraa'aad fara badan ama waxay u qabtaan hawlo service fara badan sida hoteelada sida maaragtay telecommunicationka sida waxay u qabtaan dadka transportationka waxa weyn ayay u qabtaan hadicin oo hajabin يعني وحان ولي أنا رجينا ما كميد إنه إلهي هذه بعض يونيفرسال قيب كميد إنه يدين خرو إن الرعدان الفرقان ترابل دي الله وإنه نفط النوسبه أديات رنتي حقيقة مركي مكان لو صلابتنا you can't imagine واحد لقوا هذه الكرباء سيدا ماركت هوتيل الذي وحرم كله سيرفيسكي سنعي ماركت أذيك ماركت وحيانا لميدا ماركت قفكو وبايا ماركت restaurantski ama cunooyinkii ama soo dhaweyntii ama yani wax daala uu qofka uu dareemayo ma leh
xaj aad u wanaagsan ayuu dareemaa oo maaragtay si fiican buu cibaadadaas maaragtay usoo gutaa xajka maaragtay cimrada dadka u raaca sidoo kale weye marka bogaadin weyn ayaan usoo soo jeedinaynaa aad iyo aad baad umahadsantahay aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaana idin leeyahay hanii'an 3 mar Furqaan Travel Cabdulle Ciise waa salaamaya aad baad umahadsan tahay sida aad barnaamijka uga qayb gashay laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh alaykum salaam waraxmatullahi haa walaal magacaaga halkaa joogtid waxaan joogaa waddanka Malta haye su-aal miyaad qabtaa mise bogaadin baad usoo jeedinaysaa haye walaal codkaaga kor u qaad su-aashaadu maxay tahay su-aasha weydiinayo walaalka waxaa waaye yani waddankaana joogno yani aad ay u adag tahay mafahamtay in macnaha marka waxaa raba inaan weydiiyo isku dayeen in yani baartiyo kale ama xafiisyo kale ay ka furaan wadamo Yurub sida waddankan oo kale hadda meesha aad joogto kale inay wax ka qaban karaan ha aad iyo aad maaltuu joogaa marka sidee aad u aragtaa buu leeyahay in wax loo qaban karo dadka halkaa joogo kale way adag tahay waxaan u malaynayaa inuu yiri maalma mise malta ma ku jirtaa laynka walaal hallo waxaan u malaynayaa inuu hadduu maalmo yiri waa Sweden ha walaal maalmo miyaa mise malta malta ha malta haye malta sida hadday tacagta oo ka dhawaajiyay walaalka aad buu u mahadsan yahay maalta naga soo wacay waxaan u malaynayaa dadka Soomaalida kullay maalta sida aan maqlay transit bay ku soo maraan laakiinse maadaama maalta uu joogo haddii baasaboorkii weynaa uu haysto Yurubiyaana horta meeshii roob uu ka xajiye karaa maadaama uu ka dhawaajiyay in xafiisyo maalta laga furo walaalka teleefankayga ha qorto hadduu asaga meesha degaan uu ka yahay insha Allah waxaan ka suurtagelinaynaa xafiiska furno oo insha Allah aan ogaano hawlaha iyo ahwaasha meesha maalta waan filayaa inuu ku jiro laynka hadduusan ku jirina saaxiibkay inuu TV-ga daawanayo in telefoonka Furqaan Travel shaashada aad ka qoratid si aad markaa u wada xiriirtaan oo faahfaahin dheeraad aad u heshaan maadaama Malta aanay ka fogeen oo ay tahay Mediterranean-ka haddii alla ka dhiga aad baad u mahadsan tahay laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ها walaal ku soo dhawo barnaamijka magacaaga halkaa joogtid alo ها walaal waa nin la yiraahdo Abshir Cabdi Axmed wey xagee joogtaa Abshir Birmingham magaalada Birmingham UK haye Furqaan Travel xafiiskeeda weli ma tagtay Birmingham ku yaala aad iyo aad waa tagay adiga iyo Cabdiwali maamulaha Furqaan Travel waan salaamaya si fiican sida la og yahay oo dad tir badan raacay anigu tigid baan ka goostay Dubai waa gartay serviceka xajka iyo cumrada dadkii raacay dhammaantood waxay isku raaceen inuu facility badan iyo wanaag badan bay ka sheegteen insha Allah waxaan rajeynayaa aniguna sanada kan baan ku qoray insha Allah inaan raaco bismillahi kariim haddii alla ka dhigo bulshada kale daawanaysa insha Allah bulshada kale ku daawanaysa maxaad oran lahayd markaa walaal bulshada kale ku daawanaysa codkaagana maqlaysa maxaad u soo jeedinaysaa ha ogaadeen baan leeyahay Furqaan Travel darsi fiican bay leedahay lagu kalsoon yahay ninka maamulo nin la yaqaano sheekha marka waxaan leeyahay laga warhayo aad baad u mahadsan tahay adigoo Birmingham jooga laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh asalaamu calaykum calaykum salaam walaal ku soo dhawo barnaamijka magacaaga halkaa joogtid Maryan Cabdisalaad la yidhaha haye walaal xagee joogtaa waxaan joogaa Mombasa Kenya joogtaa marka barnaamijkaad fiirsanaysa kadibna waa ka qayb gashay maxaad jeceshahay inaad tiraadid maya waxaan weydiin lahaa macnaha inay ku leeyihiin ejitooyin kaleeto meelahan oo Afrika Kenya iyo meelaha Uganda iyo arrintaa ka waran Cabdiwali Maryan waan salaamaya marka hore meel fog bay ka soo hadlaysaa oo Nairobi Mombasa sidaan hadda korba cagto fadhigii ugu dambeeyay aan dadka u sheegay insha Allah waxaan aan aad iyo aad ugu rajo weynahay markaan xajka ka soo laabto dad badan baa Nairobi ga soo wacay oo waliba ma aragtay rajaynaya ama aad u xiiseynaya in Furqaan Travel oo kale Nairobi laga furo marka insha Allah sanadkan October ama November baan insha Allah aadi doona Nairobi wadan kasta wuxuu u baahan yahay inaad ogaato shuruudihiisa marka rabto travel agency inaad ka furtid bal maxaa laga rabaa lacag maxaa laga rabaa shahaadooyin certificate noocay macnaha wadan kalba wadan ka duwan yahay marka insha Allah hadda kuma lihin laakiin future-ka Mombasa iyo Nairobi waa ka furi doonaa insha Allah haddii alla ka dhigo aad baad mahadsan tahay waxaan filayaa Maryana inay la socoto haddii alla ka dhigo waad la socotaa soo maaha
وهاجاج لينك كلا تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته والله الكسر برنامجك ما قاعد يالك جوكتيد waxaa la yiraahdaa Fawziya waxaan joogaa magaalada Birmingham هيا walaal waan salaamay walaal adiga iyo Cabdiweli ba si fiican mid lamid aan ku soo gudbinayna adiga halkaaga jooga insha Allah waxaan kula salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto si fiican waxa weeyaan Ilaahay baa mahad iska leh waxaan u mahad celinayaa maamulaha Al-Furqaan insha Allah waxa weeyaan waa dhowr jeer baan maxaan ku dhahday odaygayga iyo carruurtuba raaceen haye asxaabtaydu iyaga qudadiisu mahad badan bay u hayaan si fiican waxaan leenahay maasha Allah waa nin da'yar waa nin waliba dadka u roon waayeelka ee xashka tagaya si fiican marka waxaan leenahay insha Allah hadii la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed waxaan ku rajaynayaa inay maxaan ku dhahday Al-Furqaan la soo xiriiraan haddii alla ka dhigo aad baad u mahadsantahay adigoo jooga magaalada Birmingham reerka qayb ka midina ay macaamil la yeesheen adiga laftaadana loo baahan yahay inaad tikir ka goosatid si adiga laftaada u dhooftid haddii alla ka dhigo لينك كلا تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام والله الوكسور وين يا تي في جابي ما قاعد يالك شوكتيد والله وحن شوقا هولن بان شوقا هيا هولن بان شوقا وإذن سلام يا أديك يا عبد الولي يا عقمة دقوا سفي عن مركا وحن دوري هاي إنا أقعدو يعني سهل عبد باليرها وحن شوقا هولن وحن دوري إنا أقعدو عمرضة محي تكليف تيدي محي تاينتيبا لقو قاضية قف عمرده آدية كتير يوروب وكلا إنه أي يعني لقو قاضية يعني يجينتي ماشي يفجوجستي يو آدية جدي وإنمسه مركه ولا مامسار وكسلامية إلهي سبحانه وتعالى ما أركتها كابل مريا كول كاسا هولن أدو صومرتي أديكو ربنا خير يدولكي بركيسنا أدسو بوقتيد المركه لو waxaan jeclaan lahaa maamsaaro inay ma aragtay noo faahfaahiso cumrada ma 2 week bay rabtaa ma 4 week bay rabtaa ma 3 week bay rabtaa kulli waa kala duwan yihiin saaro laynka waa ku jirtaa Soomaha waa ku jira 2 week baan doonayaa laba toddobaad bay doonaysaa 14 insha Allah 2 week ay doonayso marka December ba mise waa April goormay rabtaa labada jeer oo la baxayo December مثلا December insha Allah cumrada December 2 week baa jirto ayada laftigeeda oo hoteeladii Makii Madiinaba ay yihiin 5 star haddii Imaam Zahra rabto cumradaas insha Allah waa 1400 baan insha Allah aad iyo aad waa 1400 oo gini markaad rabtid inaad 2 toddobaad aad aadid December haddii alla ka dhigo waa 1400 oo gini oo cuntadii ku jirto cuntada iyo hoteelka iyo waxa dhan way ku jiraan cuntadii iyo gaadiidkii adigu inta markaa dhiibtid wixii oo dhan baa la qabanayaa waxa lagu leeyahay halka tag halka loo geynaya halkaas loo geynaya halkaas loo geynaya adigu waxaad noqonaysaa qof yacni kaliya dhagaha wax ka dhageysto aan wax action qaadin okay waa fiican tahay marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan filayaa inaad la soo xiriirto baan joogaa ma waxaan imanayaa mise halkan aan ka dhoofi karayaa mise waxaan imanayaa إن شاء الله ما مسار هدي ربتنا وحكي له فكرتها هولن هدي ربتنا هالكان إيمان كرتا لكن مركو روح قصب إني باسبورك النص صدرته أي صدرتي تلفونك شاشتك كقرأ لسه حرير مركا كدبنا كشة كيس تادي على كديجو أوكي أدبض ما تسنتها سار وجوك تدل كهلا لايك كلا تلفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو السلام عليكم هلو ما يمغشى ولا وهجاج waxaan ka codsanayaa farsamada inayna tusaan qaar kamid ah dadkii horay ula dhoofay Furqaan Travel iyo Cabdiweli oo xajka ama cimrada u raacay oo qiraya runtii wanaaga faraha badan ay la kulmeen iyo ballanqaadkii faraha badnaa ee loo ballan qaaday iyo siday u arkeen markii laga dhoofiyay London ilaa iyo la tagay dhulkii barakeysnaa iyo ilaa iyo laga soo laabtay sida qaarba telefoonka hadda uga sheegayaan ayaa dad kalena horay ay muuqaallo kala duwan looga soo duubay iyagoo ka mahad celinaya taa ayaan doonayaa inaan farsamada iminka weydiinayna tusaan aniga iyo Cabdiweli iyo dadka kale adduunka ka dheehanaya sharikada Furqaan Travel oo markaas diyaar u ah horumarinta bulshada Soomaaliyeed waxaan kaloo mahad weyn u celinayaa Furqaan Travel oo hogaamiyo Mr. Cabdiweli oo ina yar oo dhalinyaro ah oo isaguna isu taagay ummadda Soomaaliyeed inuu khidmeeyo isaga iyo bahda la shaqeyso oo dhanna mahad baan u celinayaa waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan warbaahinta wixii aan soo maray in yar aan dul maro waxay ahayd markii ugu horeysay oo xaj iyo cumro aan ka aado waddankan UK gaar ahaan Birmingham
waxaan anoo aad iyo aad baqdin weyn qabay oo dadku yidhaahdaan xajku waa dhib badan yahay ayaan sidii aad iyo aad baan waxaan ogaaday bal la ii sheegay cabdiweli inuu yahay sanadkii hore 2012 dadkii xajkii uu geeyey baa iga warramay sidaa darteed baan u doortay markaan arkay isagana waxa ii muuqda inaan yara oo dhalinyaraas aan warin say isugu aamintaa mar alla maalintii ugu horreysay oo halkaan ka baxnay oo aan baskii koowaad raacnay yaa waxaan dareemay nin mas'uula inuu yahay noloshii halkaa aan baska ka bilownay marka wax yar markaan halkaad aan ka iftiimiyo baska markaan fuulay wax walba aan u baahnayn baa naloo dhigay waxaan aad iyo aad ugu bogay aad iyo aad sida bulshada ugu khidmaynayo sida ugu dhex jiro kan buka iyo kan waayeelka iyo kan beeshinkaas uu gacanta u hayo sida markaan tagnay halkaa basaskii baa diyaar noogu ahaa jidka markaanu sii marinay basaska wax walba diyaar noogu ahaa hotel jidka ku jiray qada aad u qiimo badan naga siiyey hotelka markuu na dejiyay Madiina oo na dejiyay 5 star oo 200 oo tilaabo u jidha magaalada isaga aad iyo aad wuxuu dadka kaga duwan yahay meel walba hoteeladu waa ka hor ayuu dadka u diyaariyaa hotelkaas oo 5 star ah oo 200 oo tilaabo u jidha oo 5 salaadood aad masaajidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam aad ku tukanaysid markaanu halkaas ku raaxaysanay muddo 7 casha ayaanu ka soo bixinay xajkii ma ka soo aadnay makana waxaana la dejiyay kacbada hotelka dushiisa ah oo isaguna 5 star oo isagana wax walba u dhayihiin kaasaana la dejiyay marka masaajid hotelkan deganahay hoosna wax walba oo cuntadiya noo taal masaajidka hadaan salaadii u baahanana salaadii bartan ku tukan karnaa hadii kale masaajidkii baan ku tukan karnaa kacbadii hadii kale masaajidka horseeyaan ku tukan karnaa arintaas waxay arin aad iyo aad raali gelisay marka cabdiweli agency waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda islaamkaaba aan ku baraarujinayaa qofkii rag badanna waan u sheegay qofkii doonaya inuu soo xajiyo jaaniskaas ha ka faa'iideysto waa nin dhalinyaro ah oo aad iyo aad u dul badan oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa runtii aana aad ugu qancay adeega hufan ee fiican ee xurmada leh sharafta leh karaamada leh shaqada wanaagsan ah ee ay u hayaan dadka haba ka shaqaysteen laakiin waxa weeye adeeg fiican oo runtii aan is oran karo waxa ay ka qaadanayaan wuuba ka badan yahay adeegaasaaba ka badan dhan walbaba hadday xurmo tahay hadday shaqo tahay iyo hadday hufnaan tahayba aad baan anigu marka ugu mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa qorshahana iguma jirto inaan meel kale agency ah aan tago inta Furqaan travel agency ay furan tahay waxaan rajaynayaa insha Allah tigidda kale badan inaan ka goosto sanadaha soo socda waxa laga yaabaa inaan xajka insha Allah waan aado qorshaha marka aniga iguma jirto markaan hadalkayga soo ururiyo inaan meel kale oo agency ah aan tigid ka goosto xataa waxa dhacay sanadkii hore tiidkaygu inuu dhacay 3 sano xilligii 3 bilood xilligii aan qaatay waxaan leeyahay 1 year meelaha soo ahaa adigu oo dhow 3 bilood ka bacdi ayay waxa ii suurta gashay inaan ku soo safro tigid dhacay iyaga suurta galiyay wax yar baa oo waxa laga qaaday charge ah marka runtii waxaan oran karaa aad iyo aad baan aniga iyo bulshada ugu qanacnay waana u mahad celinayaa waxaan kula talinayaa dadka aniga ila midka ama bulsho weynta Soomaaliyeed in ay la macaamilaan wixii tigida ay u baahdaanna ay ka goostaan aad iyo aad baan ugu celinayaa hamoogaanina Furqaan travel agency aniguna ma ilaawi doono haddii alla yiraahdo وهاجاج أدي أد بوماتسين هاي ولي واحد نقرأ سعتان تلفزيون كان عالمي يونيفرسال إيو برنامج كجار كاي كوساب سنة شركة دا فرقان ترافل عبد ولي أجدو تلفوننا يكوشران بالمركور على بقى بتقدم لسؤال بنك ودينية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام والله كسر برنامجكم مقع عقل كاتشوكتيت عاشا اللي يجرى هذا هاي عاشا كسر برنامجكم داونيسي برنامج سفي عم عاشا محمود علي هذا علي يا برنامج سفي عم بنودع وناي هاي والله waxaan rabaa cabdiweli inaan warsado lacagta hadii la rabo lagu xajinayo meesaga loo dhiibanayaayo uu ku aruurinaya mise adigaaga aruursanaysa laano hadaa tiraado waxbaan aruursanaya wixii waa ka un kala dhumayaan intaan xajka la gaarin taasaan rabaa inaan cabdiweli warsado insha Allah intaan la gaarin xogaagii lagu tagi lahaa marka la isla meel dhigo intaas weeyaan kun
miyaad adigu u aruurin kartaa haddii qofka uu diyaar u yahay xaalkaas waa sidee caashe maxamuud asalaamaya marka hore salaamkan ku salaamaya salaan kadib waxaa jira cagmadhig oo dad badan oo sanad walba January marka la gaaro bilaabo inay lacagtii xajka tartiib u bixiyaan marka caashe waxaan kula talin lahaa waa runteed maadaama wadankii dhibaato badan ay ka jirto dadkii oo dhan ay wada baahan yihiin inay nagu kaydsato waxba kama qabno insha Allah waad ku sii kaydsan kartaa oo hadhow markii xisaabtii buuxsanto xilligiina la gaaro waxaaga okay waay إن شاء الله هي aad baad u mahadsantahay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaal magacaaga halkaad joogtid walaal aniga waxaa la yidhaahdaa sheekh maxamed haybe waxaanan joogaa birmingham sheekh maxamed haybe weli ticket ma ka goosatay furqaan oo adduunka meel kamida ma u dhaafto furqaan iyo wadaadka kula fadhiyaba waan si wacan baan isu garanaynaa waxaan doonayay dadka inaan la xusuusiyo maaha oo qura warsheegiddu xayaysiin ama suuqgeyn waxa weeye xajku iyo tegidiisu waa kala xaj nacam magacay xaj ka wada yihiin tegiddu magacay tegid ka wada tahay laakiin imagine dad waaweyn oo la geeyey meel ayna kasoo lugayn karayn baskii helayn taxigii helayn marka waxaan kula talin lahaa walaa nuzaki cala allahi axadan qofna maaragtay ilaahay wuxuuna ahayn ugama sheegayno laakiin waxaanu sheegaynaa hawsha furqaan travel ay qabatay anigu cimraan tegey dhowr week ka hor dhalinyaraan kaxeeyey isaga cabdiweli baa hawsha noo maaragtay qabtay hoteelo 5 star dadka kala yaqaana meesha ayaa maaragtay xaram kala yaqaana haddii loo sheego way garan lahaayeen main roadka wadooyinka waaweyn xaramka kusoo jeeda kuwa ugu dhow ama shaarica jaata ama kan funduq tawxiid waa 5 star hotel cuntadii hoostay taalaa 2 minutes isagoo imaamku ragcaddii hore galay baa salaadii kasoo yacni maaha qiimo maaha hotel 5 star iyo mid 2 star isku lacag maaha hotel aad kasoo raacayso iyo mid aad lugay aad jamcii ragcad u dambeysay ka gaadhayso ama aad halkaa ka arkayso korkaaga hoosta yacni wax kastaad ku bixisaa istaahil bay noqonayaan runtii waxaana filayaaba anigu dee dhaqaale ahaan kalamaan shaqayn wadaadka laakiin inuuna hoteelada dadka uu geeyay inuuna wax nafle adeeg iyo ma garanaysaa mooyaane inuuna maaragtay wax nafleba ayna uga soo hadhin baan filaya ama dadka un service wacan u sameen aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga runtiina waxaan aaminsanahay barnaamijyo badan oo halkan ka baxay in dadku ay si aad uga abaal sheegteen aniga hadda kula fadhiyo kale marka aan sheekaysano waxaan kasii xoogaalsanayaa marka aan safar u raaco oo aan tago laakiin inta hadda safarka u raacday ka timid intuba waxay qireen iyagoo meelo kala duwan jooga inay wax wanaagsan la kulmeen wixii loo sheegay intii aanay bixin waana aaminsanahay qof walba inuu isku dayo inuu yani raaco si ay u noqoto mid uu u ogaado xaalku sida uu yahay aad baynu u mahadsan yihiin bulshada inteeda badan xaqiiqada ka sheegtay cabdiweli iyo furqaan travel iyo xaalkooda waxaa jira cabdiweli nidaamyo marka la dhoofayo ay tahay in la meel mariyo qofku wuxuu jecel yahay inuu baxo nabad kusoo laabto tikidkiisa waqtigiisii haddii diyaaraddu kasoo tagto qofku dhibaatuu tabanaya dadka qaar waxaas kama fakeraan waxaad ka qayb tahay hay-adda atol oo runtii ah midda xaqiijinaysa qofka safarkiisa inuu si suuban oo wanaagsan uu ku dhammaado arrintaasna maadaama aad xubin ka tihiin maxaad oran lahayd acto arrintaas aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaan u malaynayaa aniga adigaba inaan ummadda soomaaliyeed u bayaaninay waxa ay atal tahay iyo waxa ay tarto ummadda soomaaliyeedna badankood ama dadka safra ma dhihi karaa soomaali kaliya ma xataa waxaan arkay dad badan oo bakistaana dad badan oo ma aragtay xataa cadaana oo wax fikrada atal aan ka haysan sideedaba atalka waxaa loogu talagalay waa waxa uu ilaalinayaa waa customerka waay sida aad u jeedaan bashaashada hadda aad ka dheehanaysaan waxaa ku taalo atal certificate haddaad meeshaas hoose aad akhrisid waxaa ku qoran your protection meeshaas waxaa ku qoran waxaa ku qoran you are protected from when you were given this certificate until you return to the United Kingdom micnaheeda waxa waay maalinta aad travel u tagto travel agency atal leh ama furqaan ama kuwa lamida oo tigida aad ka goosato oo shahaadadaas aad tiraahdo ii sameeya oo aan 2 pound iyo bar oo dawladda loo shubayo shahaadadaas waxay xaqiijinaysaa in adiga safarkaadii si ma aragtay bilaa dhib ah bilaa hasad ah inaa intaad ku tagtid aad kusoo laabatid leanna lacagtan cabdiweli ma qaadanayo furqaan travel lama qaadanayso travel agenciyada lehna ayaga ma qaadanayaan lacagtan civil aviation ka qaadanayo
civil aviationkana micnaha ugu weyn oo ilaaliya waxa waaye waa consumerka dadka customerka ah in maadaama diyaaradihii ay shirkado waaweyn yihiin qofkiina uusan iska celin karin in hadday diyaaradihii qalad ku dhacaan oo maalinta adiga aad dooftid on time oo inaad ku soo laabataa on time kaas lagu sheegayo wax badanna waan sheegay ma ahan intay hurda kula tagto airportka inaa imaado inaad tiraahdo atal baan haystaa ee kaxeeya waa in intaad airportka on time imaado diyaaradii ay tiraahdaa maanta ma baxayno markaas waxaa laga rabaa diyaaradii inay ayada ay badiil ku siiso ay kuu bedasho bedelkaasoo noqon kara inay ku tiraahdo raaligelin baan kuu bixinaynaa maanta diyaarad kale oo aan ku saarno ma hayno hotel 5 star aan ku geynaynaa caawan ku seexinaynaa cuntadaada annagaa qabno berri to ayaan ku dhoofinaynaa iyo inay ku tiraahdo diyaaradeenna ma tegaysa maanta diyaarad kale aan kugu bedelaynaa ku saaraynaa marka waxaan kula talin lahaa bulshaweynta Soomaaliyeed oo i dhageysanayso tigidhka marka aad goosanaysaan weydiiye travel agency-ga inuu atal idin siin karo laana adiga berrito saaxiib kuma anfacayo waxa ku anfacayo dawladda ayaa ku anfacaysa inay ka celiso haddii wax qalad lagu sameeyo aad iyo aad baad umahadsan tahay sida quman aad u sharaxday atol oo dadka laga maarmaanayta inay hubiyaan markay safrayaan safarkoodu inuu ku dhamaan karo wanaag iyagoo eegaya certificate-ka ama shahaadadaas in meesha ay joogaan ay haysato iyo in ticketkooda uu arrimahaasi quseeyaan ama uu ku jiro laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum ha walaal tv-gaaga waa dheeryaa walaal magacaaga halkaad joogtid walaal waxaan joogaa birmingham baan joogaa ibrahimna waa la dhahaa ibrahim ka waran furqaan travel weli ma la macaamishay laakiin miyaan ku jira waxaa la hadlaya cagta miya ha cagtaa kula hadlaya cagta aad baa umahadsan tahay waan salaamaya adiga iyo maamulaha alfurqaan travel iyo muslimiinta dhammaan meel ay joogaanbo si fiican waa ku salaamayna adigana salaan kadib aniga ibrahim baa lahaa waxaan kasoo waxaya magaalada birmingham waxaana runtii barnaamijka hadda dhexda kaga soo dhacay oo tv haddaan ka arkay waxaan ogaa ma aanan ahayn marka runtii waxaan jeclaaday inaan qayb ka qaato anigan wixii aan ka ogahay travel aan u sheego ummadda islaamka iyo soomaalida dhammaanteedba haye walaal barnaamijkan runtii alfurqaan dadkii waxaan ahaa sanadka hore raaca aniga haye awalan kulli shay walaa nuzaki cala allahi axad qofan ilahay waa maalin mid walba ilahay baa naga og waa run laakiin aniga intaan bini aadam baanahay intaan ognahay maalinaan ka sheegno waajib nagu ah runtii dadkii sanadka hore raacanaha waa runtii ugu soo maqsuudnay dad hadda ka sheekeenna dee safaradaanadii iyo meeshii aan marnay iyo wixii kulli ka sheekeyna waan arkaa hadda inaan dib ugu noqdo uma baahni waa run laakiin hal baan ku daraya aniga nin baa waa Soomaali waxaa la yidhi beershow nin wadaad buu ahaa oo beenta ka cararo haye soomaalida dadka la deganaa la u tashto waxa ninkan been maanta ka sheegsiino markaas waxaa la yidhi kaco tago niyo reerka usoo yeero maanta reerka muraad buu qabaaye waxaa reerka usoo yeertaa naftina waa lasoo xiro waxaa reerka usoo yeer haye marka wuxuu yidhi markuu meesha tagaali war nafkii cidda muraad bay qabta hay maxaa la gowracayo ani been ma sheegi karo nafkina ugu xirnaa dadkana usoo yeer baa la yidhi laakiin wixii hadda iga dambeyn doona ma garanayo buu yidhi sax weeye anaga safarkii aan raacno runtii aad baan ugu maqsuudnay aad buu u fiicnaa waxaan rajeyn intii uuna mariyey iyo in leegna inta islaamka hadda la socota inuu mariyaan rajeynna insha allah si wanaagsan ibrahim aad aa umahadsan tahay adigoo jooga birmingham waa kaaga mahad celinaya inaad nooga sheekeyda safarkii aad raacday furqaan travel iyo cabdiweli laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها والله المقعد هلكا جوجتيد. waa maxamuud ismaan axmed waxaan joogaa norway. haye walaal su-aal miyaad qabtaa mise bogaadin mise talo su-aalna waa qabaa maxamed axmed xaaji waa ku salaamay aad mid lamid ah kusoo gudbiyey maamulaha shirkadana waa salaamay cabdiweli waa salaamay si fiican u salaamay si fiican horta cagmadhiga horta barnaamijyada wadid xaqiiqa markii la dhahay aanan ku faaniyeynin waa barnaamijyo mar walbo dhinac walba kataabaha waa barnaamijyada aad horta aan TV-ga barnaamijka university TV-ga aan maamulaha TV-ga aan ugu mahad celinayo guud ahaan si fiican aad baad umahadsantahay baxda shaqaalaha si fiican aad baad umahadsantahay walaal horta cagmadhiga hal arrin aan ku weydiiyaa maadaama maamulaha uu kula fadhiyo asagana maadaama fursad jaanis aan u helay aan kaga faa'iideysanayo waqtigeyga waana soo koobaa waxaa jirto Norway jooga aniga waxaa jirto Oslo hadda waxaan la dabacsanaa in la aado cimro cimradii waxaa lagu xujiyey in la yiraaho shirkadda 2,000 lagu bixi jiro koron 5,000 tigidhka ahayd hadda xujo waxaa laga dhigay in la yiraaho 14,000 dhiibaysa waa shirkaddan adoo raacaynin fiis lagu masiihayo waa xaqiina weeyaan
xagga Norway waa waa gartay marka maxaa aad jeclaan lahayd inaad tiraadid waxaan jeclaan lahay qofka bini'aadanka waxaa laga yaabaa in Sacuudiga ehel u joogo dad uu joogo qaraabo u jeedo viisadii in lagu cadaadin oon laga dhigin shirkadda ilaa viisada shirkadda ay ku wadeen viisa lagu masiixa in la dhihinaan diida marka in lagu cadaadiyaan diida arintaasan diida aad baad u mahadsantahay marka shakhsiyaan u baxay in viisa oo heli karo aad baad u mahadsantahay waxna waa wax isagu oo awood u leeyahay ilaahba awood leh inuu mas'uuliyadiis ay tahay ka jawaabi karo waxna waa wax culays oo xaqiina saaran oo isagu aanu ka jawaabi karin aad baadna u mahadsantahay adinku dadka sida uu sheego oo kale miyaa xujo noocaasi ka jirta aagan iyo intaad ogtahay marka hore waa salaamaya walaalka ka soo hadlaya Norway Oslo marka labaad su-aasha uu na weydiiyey horta anaga waxaan ka joognaa wadanka Ingiriiska laakiinse xaqiiqda waxaa jirto dadka Soomaalida ah in lagu adkeeyay viisooyinkii problemkaasna ma ahan shirkadaha problemkaas wuxuu ka yimid dadka Soomaaliyeed waayo qofkii viisa cumru qaadanaya xaramkii buu tagayaa wuxuu joogayaa ilaa iyo xajka qofkaas marka waxaan dadku ama shirkaduhu ay isweydiiyeen xajkiisa xataa sidee buu noqon doonaa ilaa wadanka systemkiisii buu qiyaanay waxaana ugu badan 80% Soomaalida Europeanka passportka haysato marka waxaan walaalka dhahayaa arintaas hadda ka horba fiisooyinka waa la siin jiray dadka Soomaaliyeed xujadaasna ma imaan jirin ciladan waxay ka timid dadka Soomaaliyeed aniga halkan fadhiyo dadaan diray last year 2013 April ilaa hadda lama hayo xaramka ku dhex jiraan waa marka waa arin ay Soomaalidu mas'uul ka tahay waa arin ay dadka Soomaaliyeed mas'uul ka yihiin aad baad u mahadsantahay barnaamijkeenu waa gabagabo kelmadda ugu dambaysa maxaad oranaysaa Cabdiweli kelmadda ugu dambaysa waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ku baraarugsanaadaan travelka sidaan ka sharqamiyay maalintii dhaweytaba dad badan oo waxaa jira Soomaaliyeed oo rabo caalanka dacaladiisa inay u safraan meel kasta midda ugu horeysa waa talo midda labaadna waa experience-kayga waxaan dheerahay inaan siiyo talada ugu horeysa waxaa waaye dadka Soomaaliyeed cilada ugu badan aan ku arkay waxaa waaye travel agency-ga markay imaadaan waxay ku leeyihiin tigid raqiis ayaan doonaynaa inay arintaas ay u bedelaan warniyo waxaan rabaa inaan dhoofo tigid waxaan doonayaa conditionkiisa uu yahay hadday wax igu dhacaan in tigidkaas aan bedeli karo ama lacagta iisoo noqon karto experience-kana waxaa waaye dadka Soomaaliyeed dad badan ayaa tigidha intay goostaan airportka marka ay tagaan diyaaradda ay ka tagtaa waxaan dadka Soomaaliyeed kula talin lahaa punctuality-ga in ay ku dadaalaan airportka inay tagaan 3 saacadood ka hor diyaaradda aad baad u mahadsantahay Cabdiweli maamulaha shirkadda guud ee Furqaan Travel daawadayaal barnaamijkeena gaarka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya Cabdiweli waa u mahad celinayaa safarkiisa iyo booqashada uu noogu yimid stuudiyaha London waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii barnaamijka ka qayb gashay iyo waliba dhinaca farsamada Faqi Rashka iyo waliba Cabdiqani Ba meel kastoo aad joogtaan intaan u yahay una weynahay iyo inta jinkay anigoo cagmadhiga waxaan idin leeyahay ismaanan dhaafine wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bulshay meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikadda duulimaadyada iyo tikadhada ee Furqaan Travel ee ku taalla bartamaha Birmingham oo idinkugu qadmeynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyo dad booqanaysa iyo dhulka barakaysan Makka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara dadka doonaya inay xajka iyo umrada tagaan waxay ugu tala galeen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star-ka oo dhammaantoodba 5 star ay yihiin Royal Rayyan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugyada ama teendhooyinka casriga ee VIP-da meel kastoo aad joogtaan yaa la moogaan inaad khidmadiina iyo hawlihiinaba u dirsataan Furqaan Travel oo intii horay uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kalena jeclaysan doonaan anaa jeclaystay iyada jeclaystay isaga jeclaystay kulligooda jeclaystay adinkuna jeclaada Furqaan Travel yaa la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee Atol oo ah mid iyadoo hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ee han ma buuxiye la xiriira maamulaha sare Cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad samaar idin ku soo dhaweynaya wixii faahfaahin ah shaashada ka daawada